shirkii kooxda xiriirka caalamiga ah ee wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Copenhagen ee dalka Denmark. Kulankan oo ay ka soo qayb galeen dhammaan xubnaha ku jira kooxda xiriirka caalamiga ah, wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo ay horkacayaan gudoomiyaha golaha baarlamaanka Soomaaliya Mudane Sharaf Xasan Sheekh Aadan iyo ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, kuwaas oo isugu jira wasiiro iyo xildhibaano. waxaa sidoo kale kulanka jooga wafdi ka socda dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug iyo Al-Sunna wal Jamaaca. kulankan ayaa waxaa shir gudoominaya ergey gaarka qaramada midoobay Ambassador Mahiga Mareykanka iyo dowladda martida loo yahay ee Denmark. waxaana furitaanka shirkaas si weyn loogu sharaxay ujeedada kulanka 20aad ee kooxda xiriirka caalamiga ee arrimaha Soomaaliya. Ambassador Agostina Mahiga oo kulanka ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay guulaha laga gaaray shirarkii ugu dambeeyay ee Kampala iyo Muqdisho iyo sida ugu habboon ee loo dhaqan geli karayo qodobada shirkii Muqdisho ee wada tashiga ahaa. kulankan waxaa sidoo kale ka hadlay gudoomiyaha golaha baarlamaanka Soomaaliya Mudane Sharaf Xasan Sheekh Aadan iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, waxaana ay ka hadleen doorka dowladda Soomaaliya ee nabad ku soo dabaalida guud ahaan dalka iyo hanaanka ugu habboon ee loo wajihi karayo dhaqangelinta heshiiskaasi iyadoo loo eegayo axdiga federaalka ee dalka Soomaaliya u degsan. More than 700,000 Somalis are at risk of dying from the effects of drought and famine. As always, children, women, and the elderly are the most vulnerable. Thousands have been forced to flee to neighboring countries in search of protection from violence and survival from famine. More have been internally displaced inside Somalia. International assistance is now reaching some of those affected, but access and security remain key constraints, especially in the Al-Shabaab controlled areas. In addition to the traditional donors, there is a generous support from new donors. كبحثوا دبعتها أدون كانوا خلقا قنصوصين نبضا إن لقاء البرلمان الصومالي الجودي الله الساري إنه كسر تلبح اليو ريفورم كيو كان استراتيجية وهنسوق بيان تلوين وأشلنا هيوالوم بالمرين كلا وهنعلم كأوسنين إنك عنه ولا سيو البرلمان كان ريفورم لقصمي كونستيوشن كنا رمسترو نبضا إن لسوق سير لو كارو أدي إلهي لقارسي سنة تمر كنا ماضو لبعتنك أغسط لبيه طبعا إن سير الله هوا We have all the ingredients available in a way that has not existed before. Let's not waste this opportunity. Thank you. kulankan kooxda xiriirka caalamiga ay ku leeyihiin magaalada Copenhagen ee dalka Denmark ayaa waxaa lagu wadaa in maalinimada beritaha la soo guranado. Cabdiraxmaan Xudayfi, Somali National TV, SNT, Copenhagen, Denmark.